haweeney qabto cudurka kali noolaanshiyaha ayaa laga soo sheegayaa xaafada naagi kaama sareysa ee aafaafka shishe kaga beegan degmada Herari Hills ee magaalada Hargeysa. haweeneyda ayaa waxa soo gaaray dhaawacyo aad u culus oo ka soo gaaray habeenkii xalayta dagaal aad u qaraadha oo gurigeeda ku dhexmaray iyada iyo sariirteeda. ergaga gaarka ee gudida guurdiidka ayaa ku baaqay in wada hadallo rasmi ah loo furo haweeneyda iyo ragga caadaystay iska abulada inta yar u soo jirta injirtu. walow iyaguna dhinacooda ay sheegeen inaanay marnaba imanaynin miiska wada hadallada, waa intaba yidhaahdeen ee faragelinta qaawan ay ku hayaan maatada miciinka u baahan kooxda isugu yeedha mataanaha oo had iyo jeeraale haweenka ku hoda sawirada beenta iyo habkii uga maarmi lahaayeen ragga. geestooda waxa iyaguna eedaasi iska fogeeyay mataanaha Watan England oo sheegtay inay iyagu dhowrayaan qulubta haweenka. waxaanu ka shaqaynaa dantooda, waxay dani ugu jirtaa inay nagu daba faylaan intay midiba meel ka calacalileed annaguna aanu ahaan lahayn kuwa soo tabiya. sidaasi waxaa tidhi England Saalax. aroortii markaa toosteed isku eegta muraayada qanci naftaada kadib markaad shidato unsi waxa hubaalay inaanad helayninba fursadaad kaga jawaabto aaladaha iimada fiberka facebooka whatsappka iyo snapchatka. sidaasina waxaa tidhi Sagal Mustafa Xasan Nuur oo taabacsan haweenka kaligood nool. ikraan caraale oo aanu doonaynay inaanu fikirkeeda wax ka weydiino horena uga mid ahayd ururka mataanaha ayaa sheegtay inay gabi ahaanba iska casishay kamid ahaanshihii xubintii ururkaasi haatan ay ku biirtay kooxda u ololeysa ragga loolanka ugu jira laba guursiga. geesta kale waxaanu la xidhiidhnay oo khadka telefoonka kula xidhiidhnay kaba yare walow isfahan la'aanta luqadda xaajira xaadhacay xasla iska raba jawaabaheeda xaayowga iyo su'aalaha deedu ay ahaayeen luqad ahaan kuwa isdeelqaabsan. haddana nuxurka hadalkeedu waxa uu ahaa inta guurka necab kor allaha ka dhigo. dhanka kale waxaa toddobaadka soo socda la filayaa mar labaad inay dhacdo maxkamadii lagu qaadayay nasteexe ee ka dhacaysay wadanka Norway. nasteexa ayaa toddobaadkii hore waxay tagtay maxkamadda ugu sareysa ee naafada caashiq ee wadanka Norway taasoo lagu soo eedeeyay nasteexa inay hadiya jeeraale dumar badan barakiciso marka loo eego barteeda Snapchatka, Facebooka iyo safarada tirada badan ee ay gasho. sidoo kale maxkamadaasi naafada caashiq ee dalka Norway waxa laga mamnuucay guud ahaan inay ka soo qayb gasho suxufiyada miisaan dhimista u joogta wadanka Mareykanka ee Filson Ahmed iyadoo lagu eedeeyay inay barnaamijyadii ay halkaasi ka baahisay ay ahaayeen kuwa xaqiiqada ka fog dhanka haweenkana taabacsanaa. inkastoo ay Filson Ahmed qiratay qaar ka mid ah eedeymahaasi, haddana maxkamadda naafada caashiq waxay mamnuucday bayaankeedana ku caday inaanay ka soo qayb galin. Amara oo ka mid ah mas'uuliyiinta mataanaha ayaanu doonay inaan wax ka weydiino balse waxay sheegtay inaanay hadda diyaar u ahayn waxaanay ku soo koobtay no comment.